75 kulan ee Lamine Yamal oo ciyaaray ayaa waxa la barbar dhigayaa 75 kulan ee ugu horeeyay xirfadda kubadda cagta Spain Messi. dad badan ayaa si degdeg ah waxay isku barbar dhigayaan tayada ciyaartoyda Barcelona gaar ahaan Lamine Yamal iyo halyeegii hore ee kooxda Barca Lionel Messi kadib markii uu soo bandhigay Lamine Yamal awoodiisa kooxda Barcelona iyo doorkii xulka qaranka Spain oo ku guuleystay koobkii qaramada Yurub ee dhawaan lagu qabtay wadanka Jarmalka. Yamal ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay in lala barbar dhigo Messi, laakiin wuxuu doonayaa in uu sameeyo dhabo u gaar ah isaga maadaama uu hadda leeyahay xidiga heer caalami ee wadanka Argentina. ma ahan wax macquul ah in la ila barbar dhigo ama aan la mid ahay. wuxuu sheegay Antena 3 kanaalka la yiraahdo ee Spain, waxaan jeclaan lahaa in ay barbar dhigaan ciyaartooygii ugu fiicnaa taariikhda kubadda cagta, laakiin waxaan rabaa inaan noqdo Yamal oo aniga ah. waxa uu intaa ku daray suurtagal ma ahan in la gaaro heerka Messi. dhanka kale Messi ayaa meel fog wuxuu ka daawanayay waayaha Yamal, waxaana uu aaminsan yahay in xidiga reer Spain uu u tartami doono abaalmarinta Ballon d'Or oo 30 bisha soo socotay October lagu shaacin doono magaalada Paris ee dalka Faransiiska. isagoo la hadlayay Messi wargeyska Faransiiska La Web sanadkii 2023 wuxuu yiri waxaan u maleynayaa in Lamine Yamal uu yahay wali ciyaartooy da'yar una ciyaara Barcelona, wuxuu door weyn ka ciyaari doonaa mustaqbalka inuu ku tartamo Ballon d'Or. labada weeraryahan ayaa waxay iska shabahaan dhowr dhinac. tusaale ahaan labadooduba waxa ay soo xirteen funaanada kooxda FC Barcelona. dhanka kale labadoodu waa ciyaartooy ku ciyaara dhanka bidix lugta, waxay ku ciyaaraan dhinaca kale hal boos oo ah dhanka midig. si la mid ah Messi Barcelona wuxuu yimid isagoo 13 jir ah. Yamal yaraantiisii ayuu ku soo biray akademiyadda caanka ee kooxda Barca ee La Masia la yiraahdo, waxaana uu ku bilaabay inuu durba jabiyo rikoorradii u yaalay ciyaartooyda da'da yar ee kooxda Barcelona. Yamal wuxuu noqday ciyaartooyga ugu da'da yaraa ee gool ka dhaliya taariikhda tartanka qaaradaha Yurub, isagoo jira 16 sano iyo 362 cisho ayuu gool u dhaliyay xulka qaranka ee Spain. wuxuu sidoo kale ku guuleystay abaalmarinta ciyaartooyga da'da yar ee ugu wanaagsan Euro 2024 kadib markii Lamaan uu gaaray kulankiisii 75aad ayaa hadda waxaa la isbarbar dhigayaa rikoorada labada ciyaartooy Messi iyo Lamine. waxa uu kulankiisii 75aad ee xirfadiisa ciyaareed ee kooxda Barcelona uu ka horyimid kooxda Getafe bartamihii toddobaadkii hore isagoo 17 jir ah, halka Messi uu ciyaaray kulankiisii 75aad ee xirfadiisa ciyaareed bishii Abriil 2007 markaas oo uu jiray 19 sano. aan eegno Lamine Yamal 75 kulan ayuu u saftay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. goolasha uu dhaliyay waa 14 gool, wuxuu caawin ama gacan ka geystay 23 gool. waxa uu haystaa yoolalka 37 daqiiqad kasta gool ama caawin ayuu sameynayay 126.9. horyaalada Isbaanishka hal mar ayuu ku guuleystay, horyaalnimada Yurubna hal jeer. dhinaca rikoorka Messi 75 kulan ee ugu horeeyay ee Barcelona oo u saftay kulankii 75aad markii uu ciyaarayay 22 gool ayuu u dhaliyay, halka 14 gool Lamine uu dhaliyay. caawinta 8 ayuu Messi ka qayb qaatay, wuxuu haystaa yoolalka 30. tirada daqiiqadaha goolkiiba ama caawinta uu sameeyay waa 146.5. koobabka uu kula guuleystay naadiga Barca Spanish League 2 jeer ayuu kula guuleystay, Spanish Super League hal mar, Champions League hal mar.